wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay warnimayow reer kalamaan waxaa lidin leeyahay walaalooyinow hadalka wacan sadaqa weeyaan weyn wanaagga la isfaro xumaha la iska waanshaa waraar hoose kii marahayee weecsan ma ahaane haddii wadar ahaanteen islaam lagu walaaloobay weynaanna faray wada jir aan waaxid noqonnaaye waslade iyo jidh baynu nahay ruux ku wadayaale wehelkaaga lama gooyo iyo waaxyo kaa mid ahe soomaalidu dagaal bay waddaa aan weji lahayne war ma waalannahay sow caqligu inama waantoobo weedaan mahadsanto horta ulmaadu masaajida siinka qayliyaayno qabiilkan iska dhaafa midoowa qarankin dhisda siin lahaayana hebebsideen haliintoona isku bedelno adiina geega hoos ku hale fadheeti Soomaalidu dagaal bay wataa markaad leedahay ma in shabaab la iska dhacshaa diidaysa warwarka ujeedadiisu waa idin garab maraya waxa leedin yiri Soomaali weynay dheexaad walaaciyo walbahaar u joogto silic u heshanayse haddii aanad waalnayn waana kuuma laabnee wakhtigii ku dhaafiyo wax ku qaada waaya horta kaalaya madaxweynuhu soo astaan qaran maaha sidee loo bedelayaa marka astaanta qaranka war astaanta qaran waa afar sano war waxaa la yidhi waxyeellada dhacaysa iyo fidnada ilan walaaqaysa maydkaawan qaran waa baryaba ee waddada yaalla wixii sababay aafada haddaan dhab isu weyddiinno waa beenashaag iyo runtoon ka wahsanaynaaye ka waantooba soomaaliya ha iska sii wadine warallow warkakiidaha kaa suusaday ha abwaantiri macadda ilaahay naariisa weliba eray bal inay dalfoof tahay aqliga dooni laga saaray wixii hore u soo daashaday bay degaysanaysaa war horta dawladda iyo wasiiradeeda iyo ciidankeeda maxay qabtaan oo kaale muufi iyo canjeera ma iska cunaano maandhooyo haddaan ay kaar wata meel kasta ma ku mari karaa ayay war ma haysidu madaxweyne cali mahdi inuu edhikaar qaato waa diiday aryaada waxaa la yidhi wasiirre iyo madaxweyne iyo waardiyaha hoose nin waliba xil baa loo wadacay waajibkiisa ah inta laga wahsada hawshayaan beenna loo warin warnimayow macallin masaariha wuxuu yidhi shakhsiga Soomaaliya ee dalkiisa jooga waa naflaha ugu adkaysiga badan adduunka qof kasta wuxuu bixinayaa koronto biyo waxbarasho caafimaad canshuur intaas oo dhanna cid la qaybsata ma jirto wuxuu ku sii daray waxa kale oo uu bixinayaa mag qaaraan xaqul qalin birqaad baad xaq salaamo shaxaad iyo waxyaabo kale intaas oo nuucna cid la qaybsata ma jirto yiri war macallinka masriga wuxuu iloobay in intaa qarax u sii dheer yahay Soomaalida aan cid la qaybsanaysan la arag war macallinka masaarida Puntland oo jooga qaraxna kama dhaco aryaadaha macallinka masaarida wuxuu moog yahay in lamadaan beri qarax quraacna loo kaga dhigaayo qabyaalad iyo dhibaato iyo quruna waagana la ku hogaami doonee qaraxdaad ku quraacdaya qabyaalad loo qalqaaliha qaraxdaad ku quraacdaya qabyaalad loo qalqaaliha haye war Soomaalida sidaas u cadiban oo intaasoo dhibaato cid la qaybsanaysa aan la arkin qofkii yiraahda adna uma maqna alna uma qodna nabadii nolol waxay ugu jawaabaysaa qaran dumisaata macallinkaas masaarida hooyo Soomaaliyeeda dhashan u maleeya war waxaan idin leeyahay weji male nin waayeelahoo weysa taariga weji male wadaad caalim oo xaqa ka weecdaaye weji male wakiil dawladnimo waajibgeed gabaye weji male nimaan wacad lahayn waaxidna aqoon war qaran dumisaa tahay arookan aqal laga dumiyey madaha asaaba kaduudii saan ka dhigaa ma iska daysido war kaduudiga aad sheegaas gooya wiil iyo waayeel koona ma dhaafna wada simi aryaadaha waxaa hore loo yidhi kalama weyna weeryaey waanisu weji egyiin kalama weyna weeryaey waanisu weji egyiin war widaad hagge ka wareegdi iyo anay waysadid been isu jaagiin abdulla
runtaw war wakhtigan xaaladdu waxay u eg tahay allah u naxariista abwaan shariif soomaali midii uu ka yidhi hadda ka hor haddaan weynay walad khayr qabo oo waalidka xushmeeya miyaan weynay waagii baryaba wacalna tuuriye war wacalna tuuriyeya waa nugu farabatee wadaadkaasi hadduu nool yahay dalka ha uga duceeyo aryaadhaha war ma haysiina madaxweynihii puntland deni waa warramay wuxuu yidhi baarlamaanku sharciga batroolka iyo sharciga doorashooyinka oo ay ansixiyeen xabad kama jirto cabdillow madaxweyne deni doorashooyinka ma dhihina ilaahay baa wax kaa odhanaya war guddoomiyaha guddiga doorashooyinka xalimyare waxay tidhi annaga haddaanaani guddiga waa diyaar garoobnay doorasho in la qabtaana diyaar u nahnay aqalka sarena waxay ka codsatay inay sharciga ansixiyaan si doorasho ay u qabtaan war doorashadii hore dad binaaytay tagna qoloo aan tahay hayga dhexgelina warkayga dhegansada waxaa kale uu deni yidhi dawladdu waxay magacawday guddiga qabanqaabada toddobaadka xorriyadda oo ay 6 bilood waaga ka dhiman tahay mugga wuxuu yidhi waxqabad uma socotee maaweelo iyo waxyaabo ay ku hoos qarinayaan war nabad in noolal haka doreena malay badda ka jiro sanjibiil iyo tumadow nagadeena hatana waxay halkaa ku qarinayaan nin weyni waa arkaa doqonna loo sheegi maayo aryaadhaha warka miyiga sugaysiin aan dhammaysdhamase berigoo dhan nacnacnacnacaad ku jiraysiin dhammaysee haddaad war hayso warka habbe shakfir hay cunina deni wuxuu intaas ku sii diray wasiir warramaayaan arkaayo gobolladoo dhanaan tegaynaa dhahaya agtaynana sooma roogsa karee wasiirkaasu heesu badnaado ou yidhi boowe sooma roogsa kara deni ma odhan war madaxweyne deni wuxuu yidhi dadka muqdisho maalin kasta qaraxyada lagu laynayo cidna uma maqna ceelna uma qodno yaa cidi u maqmaqna ceelna uma qodno maa nugu cusub cabdiqaasinaa horuu yidhi asaga iyo cabdiqaasinba waa qarandumis waa qarandumiskuya qarka soo dhac ahey koohayna nabad in noolal warwarkaa naga dhex gelinina wuxuu yidhi shacabka puntland dadka reer muqdisho ha u gurmadaan war ma haysaana hadda ka hor waxaa la yidhi nin odayaha wiil ka xanuunsaday waa ka dhintay wiil kalaa ka xanuunsaday wax dawaa waa sii diida wiilkii kale odayaal baa inta u yimaadeen baa la yidhi war wiilkaana intuusan nafbixin maa daawaysi wuxuu yidhi wiilkii horoo dhintay buu u indheeg yahay marka dawe isaga khasaarin mahayo kaas reer galmudug aha iyo kacaali war wiilashaasaan ku xusuustay guddoomiyihii hore gobolka banaadir yuusuf madaale wuxuu yidhi 2 wiiloo iskuul u socota ayaa mid lacag hooyadii soo siisa ka luntay lacagtii uu muddo meel bacaada ka baarayey kii kalena waa la joogay inta kane lacagta raadinayo kadibna wakhtigiiaa ka dhacay iskoolka oo albaabkaa laga xirtay nin oday oo waayeeloo socday waxay yidhaahdeen macallinka nagala hadal adeer ninkii odaga ahaa waa waday oo macallinkii waa kala hadlo waa u geeyey kadibna macallinkiyaa su'aaloo yidhi maxaad ku soo daahdeen kii lacagtu ka lunta wuxuu yidhi lacagaa iga lunta macallin hooyo i soo siisay ilaa saaka bacaadkaanan ka baarayy kii kale aduu maxaad ku daahday wuxuu yidhi lacagta uu raadinayey ayaa lugtu ii dul saarreedon ku taagnaa marka waxaan la yaabanahay xaaladda soomaaliya u ekaa labadaas wiil oo markaa dawladnimada soomaaliya ma madaxdeedaa ku taagan mise nimanka xaalana deggan war madaxda dawladdu hadday ayadu ku taagan tahana inay ka kacdaa laga rabaa hadday cid kale ku taagan tahana inay ka kicisaa laga rabaa war madiidaad sheegays ardayna maalin jeyma khilaafaw aryaadhaha waxaa hore loo yidhi dugsi macallinkii daw ka qabo lagama diin qaado dab la shiday asaan deeq lahayn laguma daalgooyo nin la dilay haddaan diya la bixin laguma daawoobo abdulow maylaraylan abaardhimidiho aalis mayga daagurimaw arooda war ma haysiinay somalilan waxaa dagaalinay james iswaal waxaasna yidhi sifooyin badan oo soomaalida ku wada hadli karaa jiraan laakiin iyada inay ka go'an tahaa muhiim muqdisho iyo hargeysana waa inay wada hadlaanuu yidhi war nabadii nool maxay u dhihi weysay james iswaal waa qarandumis ee hanagala beddela nan garaadami arabta inay dhahaan war muqdisho iyada qiiqaysee maxaannu kala hadallaa eebbaagoo hargeysana qaada qabow ma aheeday hee war ma haysiine madaxweyne xaaf wuxuu soo saaray waraaq af ingiriis ku qoran wuxuuna u kala diray beesha caalamka wuxuuna yidhi madaxweynaha sharciga ah ee galmudug waa aniga taladan ana iga goodaa guddiga aan magacaabay doorashada galmudug waa inaad la shaqaysaan dawladduna musuqmaasuq iyo wax isdabamarinay ka wadaahe diida warkooda war xaaf beesha caalamka laba warqaday ka haysaa tii hore uu dhahay xilkii waa wareeji iyo midaan hadda uu leeyahay anaa madaxweyne ah tay qaadanaysaa beesha wartii lagu manaato gaadadaas war waaba yaabaye galmudug mar maxaafba marna ma maxamuuda war haddii macalin maxamuudba 20 xildhibaan la siiyey xaafna waa in 20 koo kale la siiyaa si arrintu u degto war marka nabadii nool maxay qaadanaysaa war xaaladda galmudug inoo xildhibaan liska laalusho maro hayte war guddoomiyaha gobolka banaadir wuxuu yidhi al-shabaab waxay ku soo aruureen inay koontaroolada isku qarxiyaan awoodna ma leh war wuxuu yidhi maalin walba liin gurteena wali suubiyey bamaaraasan ma ahaysan
kalamaanba weligay intaan joogay waxaasaa la yidhi mooyaane waxaasaa la suubiye lagama sheegin madaxweynihii hore sheekh shariif oo ingiriiska ka warramaya wuxuu yidhi isbeddel in la helaa waa lagama maarmaan sidaan hadda socotana si lagu jiri kara ma ahanuu yidhi bilaawen isbeddel baa loo baahan yahay isbeddel baa loo baahan yahay ya bilaawen maaha wararta soomaalidu ma kala taqaanaa isbeddelka iyo iskubeddelka war jenaraal tuuryare wuxuu yidhi galmudug isqaqabsi iyo khilaaf xal uma aha war nimanyow nin john milton liiraa ingiriis u dhashaa waxaa la weydiiyey sidee ayay ku dhacday in wiil 14 jir ah loo caleemo saaro boqornimo loona diido inuu guursado ilaa uu ka gaarsay 10 sano wuxuu ku jawaabay in dawlad la maamulo ayaa ka fudud in dumar la maamulo war nimanyow waxaa la yidhi indhaweydba gabay waan ka tegey faraaraqdiisiiya anigoon dastuurkiisa jabin kuna cayaaraynin balaan soo rogaal celiya waa or iyo duufaane maraa goof nin lagu soo korshoo daallan baan ahaye baadiyana xitaa waa tegiyo yurubta qaarkeede dawladnimana been bay rabtaa lagu hoggaanshaa aryaadhaha war ma haysiine geeli soomaaliya war saxaafadeedow soo saaray fadwooday naga taga nugu fadwoona warkaan sheegayna dheganso wuxuuna yidhi geela walaalahayna ee ustareeliya lagu gumaadaayo uma adkaysan karno umana dulqaadan karno beesha caalamkana wuxuu ka codsaday arrintaas inay ka hor tagaan oy faragelin ku sameeyaan foosha xun shaaliyadda geela soomaaliyadoo la gumaadayo hal la joojiye miyuu yidhi war naga taga geela iyo geellaydaad isku qaldaysaane war odayaal somalilan jooga waxay yidhaaheen geelaha asalkiisa somalilan baa laga qaaday waxayna codsadeen in loo soo celiyo gumaadka laga joojiyo ma geela galmudug ay somalilan leedahay markay leedahay naloo soo celsho war geelaani jawhara laga qaada geelaan markii ugu horraysa war geelaas waa geelii jubbooyinka sumadiyaana ka muuqato war geel maska darana geelaas geelii baydhow uu wajeertay isdhamiya kamaadda war geelaas qowrtiisa fiiriya waa geelii hiiraan ceelka xarlugolu bii kacbay naga taga geelaas waa geeli aadan jabaale bowa geelaa garan maysaa niina geel nugaaleed weeye geelaan garan maysaana waa geel iyagii giib naga xareeyey araada si usawadin gelin isku dagaashimaa keenteen heleleeyo shuba labadii heleleeyo geel fulay gaari maaye ha ka garab fulo geela howga geela howga naga taga geel la'aan allahaydan dhige waryaa hadna cunin geel beele waryaa geela igaalsha waryaa geela goofka iiga bixiya